السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواad saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalkan walaalaha family. waa mar kale muuqaal cusub oo nooga hadlayno musalsalka walaalaha xalqadiisa 64 faaladeeda oo dhameystiran. waatay daawadaytay markii wada soo booqatay janaalkan walaalaha family, subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalkan like noo saar. waa maadsanta intaa ka bacdi ku soo dhawow faalada xalqada 64 oo dhameystiran. bilowga hore xalqadaba waxaan arkaynaa Cumar oo ku dhex suuxay baskii dheeraa uu saaraa, isla markaana baska xaafadahooda ayuu keenayay, balse waa uu ku dhex suuxaysaan xalqadii u dambeysay ku soo aragnay. haddaba ninkii baska wada ayaa soo kacay ama darawalka ayaa soo kacay, isla markaana wuxuu isku dayayaa Cumar inuu kiciyo, balse markii uu xal ka waayo wuxuu la hadlayaa dhankaas iyo isbitaalka. isla markaana Cumar waxaa loo qaadi doonaa dhankaas iyo isbitaalka ayaa loo qaadi doonaa. halka muuqaalka xigaan arkayno qoftii goonu lahayd oo gubtay baskii uu caakif ku jira ama baskii ay sheenguul lahayd ee cuntada ku dhex iibinaysay, isla markaana goonuul oo faraxsan oo sii socota, isla markaana og inay dembi geysatay bas dhan gubtay oo sii socoto ayaa waxay maqlaysaa cod dhawaaqaya, isla markaasina codkaasi waxaa weeye caakifata kuul oo caawiye leh. goonuul waxay go'aansanaysaa in ay si degdega u laabato, dadka ay isugu yeedhaysaa, isla markaana caakif sidaas ayaa lagu badbaadin doonaa, baskiina waa la damin doonaa, laakiinse baska aad ayuu gubtay waa uuna xumaaday. markaas kadib Shanguul waxay ka shakinaysaa in goonuul ay gubtay, balse caakif ayaa ku dhahaya goonuul wata baskaaga intanba kuu soo reebtay, iyada ayaa ku badbaadisay, qoftaa nafteeda ay badbaadisay. Shanguuley isteji ayuu ku dhahaya caakif, isla markaana Shanguul way iska aaminaysaa ugu dambeyntii. halka muuqaalka xigaan arkayna caakif oo suusaantiisii u imaaday, isla markaana iyada ayaa dhayaysa dhaawiciisa. halka muuqaalka xigaan arkayno dooru kula hadlaya Cumar, isla markaa mobilka Cumar ayuu wacaya, waxaana ka qaban doonta kalkaalisada isbitaalka joogtay. kadibna waxaa loo sheegayaa in Cumar xoogaa uu dhakhtarka yaalo, isaguna wuxuu la hadli doonaa qoftii Asiye ahayd, isla markaana waxay iman doonaan dhakhtarka ay labadoodii oo wada socdo imanayaan si ay u ogaadaan xaaladda Cumar iyo waxa soo gaarayba. markaas kadib waxay ogaanayaan Cumar in maskaxda uu dhiig kaga furmay sidii aan gooskooska ku soo aragnayba, isla markaana kalkaalisada ayaa dhahaysa waa inaad ka taxadartiin, sidoo kale wax dagaal ayuusan galin maalmahan intuu caafimaadayo. toddobaad kadibna waa inuu Cumar iisoo laabtaa si aan xaaladiisa u eego. isla markaana Asiye ayaa ku dhahaysa Cumar balaniga qaad inaadan dagaal damba gelaynin oo aad inta aad bogsanaysid sidaas aad u joogaysid. waa tahay markaas kadib ninkii Cumar ahaa wuxuu dhahayaa Asiye bal sawirkan eeg. sawirkaana waxa weeye Sarbi oo qaba gacantaasna wuxuu dhahayaa Sarbi ayaa iskale. sidoo kale waxaa naga xaday gabadha Yaasmiin habeenkii u dambeysay la joogtay gacanta waxada ay u timid. sidoo kale qofka gaariga email tiirsiya waa Sarbi. markaas kadib gabadhii Asiye oo xanaaqsan ayaa waxay u tagaysaa Sarbi, isla markaana horta intaysan ogaan arrinkan in uu Sarbi gaariga email tiirsiyay ayaa Sarbi u tagaysaa, wayna la soo dagaalamaysaa, wayna u soo hanjabaysaa, waxa ku dhahaysaa mar kale haddii aad walaalkay wax ku samaysid aniga ayaa kula xisaabtami doona, waan ku dili doonaa, ku ducaysa inuu Cumar wax soo gaarin, ku ducaysa inuu Cumar caafimaado. Axmed Ilmaaziya Sheewaale ayaa kala qabanaya. markaas kadib ayay ogaanaysaa in Sarbi uu yahay qofka gaariga email tiirsiyay, isla markaana uu baxsaday. halka muuqaalka xigaan arkayna Axmed Ilmaaz oo u tagay dhankii hooyadiisa ayuu u tagay, inkastoo Cumar u socday balse hooyadii baa joogtay guriga Cumar. iyo markaas kadib wuxuu dhahayaa hooyo buu dhahayaa Cumar ma caafimaad qabaa, waxaan ogaaday in maskaxdu dhiig kaga furmay, iyaduna naxaysaa suu dhiig ugu furmay dhahaysaa. markaas kadib ayuu dhahayaa Sarbi ayaa xoogaa isdagaaleen, marka dhaawac ayaa soo gaadhay oo wuxuu dhahayaa ilaan adimaada arrinkan ogeyn. markaas kadib waxay dhahaysaa waryaado qonyahoon ma la socotaa laba caruur oo walaala inay isku dagaalayaan adiga dartaada, sababtoo haddii aad Cumar aqbashid inaad dhashay caruurtaas maysan isdagaalayeen oo walaala iyo iska dhigan lahaayeen. isaguna wuxuu dhahayaa hooy sidaas dhihin, caruurtaasi walaalana ma aha ee sidaasi ha u hadlin, aniga Cumar aabiye wax lamid uma yihi, hal wuxuu kaliya u ahay, waxaasina wax kale ma aha, waan ka qoomay inaan dhalo. isla markaana way dharbaaxaysaa, waxay ku dhahaysaa meeshaani waryaado qonyo xunkaas kaga tag. halka subaxda xigtaan arkayno qoftii Leele ahayd oo u timaaday Cumar si ay u qaado, isla markaana way bariidinaysaa, wayna wada sheekaysanayaan, balse daqiiqada yar kadib waxaa iman doonta qoftii Suusay ahayd, waxayna Leela ku dhahaysaa halkan maxaa ka qabanaysa. Leelana waxay dhahaysaa waxaan ogaaday xalay in Cumar isbitaal oo kale, waxaan dhahay balse sii qaad asxaab maadaama saaxiibad yihiin. marka hal mid markuu weydiiyaa Suusay ayaa dhahaysaa waxaad ka xuntay inaadan ku weydiinin amar ama inaan ogolaasho kaa soo qaadan imaanshahan halkan imanayo.
hadalkaasi kaftan oo kaliya ka waday ugu dambeyntiisa Leila ayaa dhahaysa Cumar oo adiga suusay raac anigana Aasiya iyo Uljani ay bika ayaan qaadaya sidaasi ayayna ku soo bixi doonaan yani xogaa yar degdeg ay nagu tiro oo mashraxayna u jeedin balse waad ogtihiin baryahan ciladii nagu yara dhacday sawirada maadaama na soo qaadan karin marka kuma dheeraan nafaalada haddaba Cumar maadaama uusan dagaal gali karin oo ninkan Sarbi lagu magacaabana la xisaabtami karin yarkan lagu magacaabo Dooruuk iyo sidoo kale Aasiya ayaa la talinaya waxayna ku dhahayaan waxba Sarbi xiligan hala dagaalaman adiga ba xanuunsanaya waxaad samaysaa Sarbi ninkan lagu magacaabo gebigiisaba dacwey ayaa ku dhahaysaa oo booliiska arrinkaasi han u sheegno oo sidaas Sarbi gacanta loogu soo dhigo asagana kamuusan diidin waa uu ka ogolaaday booliiska ayuuna wax waliba u sheegaya waqtigu wuxuu socdana waxaa la soo qaban doonaa ninkii Sarbi ayaa la soo qabanaya waxaana la geyn doonaa saldhiga isla markaana wax dambi ah lagu waayay wuuna soo baxaya balse Cumar yaa Dooruuk oo Aasiya banaanka ku sugaya Cumar waa u dhawaaqaya waa uu hanjabaya wuxuuna dhahayaa arrinkan waa kula xisaabtami doonaa si walba dhaca muran dheer ay halkaas ku galayaan waxa rajayn doonaa insha Allah taala muuqaalada xiga in aan muranka saa u ka dheer aan mid idinku soo faafahiyo balse murankaas hadaan muhiimada ka soo qaadano Cumar waxa uu sheegay in uu la xisaabtami doono yarkan lagu magacaabo Sarbi isla markaasina hadalkaas wuxuu meel ka taabsan doonaa ama handadadaasi qoftan Shawaal waxaana dhahaysaa bal eega wiilkayga suu u handadayo suu ugu bootaynaya amal oo kale dad faantid marka Shawaal ayaa hadalkaasi aad uga xanaaqday Cumar bootadiisaba halka muuqaalka xiga arkeyno Caakif Fatakuuli nabad oo sheekaysanay isla markaana nabad waxa ku dhahaysaa habeenkii u dambeeyay wixii dhacay iskiilo asaguna wuxuu dhahay aniga rixto waxaan rabaynaa arrinka ku sheego habeenkii u dambeeyay wixii dhacay waan iska iloobaynaa isla markaana waxay dhahayaan hadaan anagu mar iloowno Dooruuk talo mu iloobi doonaa Dooruuk ayaan arkay ayuu ahaa qofkii ugu dambeyntii waxay go'aansanayaan in caawa uu Caakif u imaado cashada ay wada casheeyaan isla markaana Dooruuk ay wax ka dhaadhiciyaan si uu arrinkaasi u iloobo haddaba Aasiya waxay bilowday shaqo cusub oo dawaarlayaasha ayay siinaysaa shax siinaysaa sidoo kale diracmiya horta xidhan adi dharka ay toolayaan dawaarlayaashu ay u gegeynaysaa ayadan waxaan filayaa in ay baran doonto isla markaana ay maalmeer kadib dawaarlayaashu ku biiri doonto balse waqti xaadirkan shaqada waxay ka bilaabaysaa dabcan waxay ka bilaabaysaa in ay dawaarlayaasha siiso alaabta u baahan yihiin dharkooda muuqaalka xiga waxaan arkaynaa yarkii toolga ah oo imaada Caakif Fatakuul wuxuuna weydiisanayaa shaqo cusub ugu horeyntii intuu shaqada weydiin ka hor wuxuu aad uga mahad celinayaa garaacista oo garaacay aabihiisa wuxuu ku dhahayaa Caakif oo runtii adeer Caakif oo aabahay meel baad iga marisay runtii maalintii dambaysa casri ayaa u dhigtay balse waxaan rabaa inaan aniga walaashayba aabahay ka kaaftoono oo nin aan iska dhigo oo aan shaqaysano Caakif oo shaqa meel uniga keen wax waliba diyaar baan u hayaa gala xishoon hadhiin toolgaagi taajirka miya maanta shaqo ani weydiisanaya hadhiin wax waliba diyaar ayaan ahay ugu dambeyntii kabaliyariye ayay go'aansanayaan in uu noqdo toolgaana Cumar meeshuu ka shaqeynay uu shaqada ka bilaabaya halka muuqaalka xigaan arkayno Shawaal oo go'aansatay in Cumar laga eriyo college-ka ama iskuulka in laga eriyo ay go'aansatay isla markaana waalidka iyo dadkii college-ka caanka ku ahaa sida maamulaha iyo sidoo kale Axmed Ilmaas Suusan Goonuul Singuul way wada kulmayaan dhamaantood iyo sidoo kale Suusan xitaa way joogtaa meesha sidoo kale Caakif meesha kama barno way wada joogaan waxayna go'aansanayaan maadaama Cumar uu cunuga Sarbi u handaday oo uu u bootaynayo in Cumar laga eriyo markaas kadib Suusan ayaa dhahaysa horta intaysan Suusan hadlin waxa hadlaya macallinkii Buraaka wuxuuna dhahayaa aniga kulli waan ogahay hadal ima banaanay in arrintan oo kale ka hadal lama baahno sababtoo maamulaha ayaan ahay balse anigoo yani maamul ahaan aan jilaynin ayaan hal fikrad ku darsanaya Cumar waa yar guul gaaray runtii wuxuuna ka mid yahay Atamaan College ardayda ugu xariif ka san marka waxaan kula talin lahaa arrinkan si hoos ahaana inaad u xalisiin balse Cumar aan laga burinin markaas kadib waxa Ayla oo ayadu meesha joogtay ayaa dhahaysa oo yani waxaan oo dhan mas'uul ka ahayd yani qof kale oo hadlaya miyaa jira sababtoo ah hadda Ayla ayaa dugsiga maamulka ama iskuulka Ayla ayaa maamulaha koobaada Buraak waa ugu soo xiga marka Ayla ayaa dhahaysa yaa kale oo hadlaya isla markaana Shingul ayaduna dhahaysa dabcan hal yana laga burin cuniga maadaama xariif yahay sidoo kale Goonuul ayaa fikirka ku raacayso waxa dhahaysa Cumar yani ninkayga ayaaba adeer waa runtii marka yaan laga burin asaga maadaama soo xariifsa u yahay Suusan ayaa marka u dambaysa hadlayso waxay dhahaysaa kulli aniga wada ogtiin in Cumar hooyadii ahay balse hooyo ahaan uma hadlaaye waxaan u hadlayaa yani cunug yar oo runtii soo koraya yani ma fiicna mustaqbalkiisa ka burino iskuulka iska sii dhigto yani kulli wax dhib uu sameeyay meesha ma yaalo Shawaal ayaa hadlayso waxay dhahaysaa
aniga cunugayga ayuu mar walba u hanjabayaa bal ka waran haddii cunugayga wax soo gaaraan oo ayaan anu u qabsan cunugayga wax soo gaaraan. Susan ayaa laba hadlayso u jawaabayso waxay dhahaysaa kulay kamaada fikirin markii cunugaaga uu gabadheer email gaariga tiirsinay sidoo kale markuu Cumar garaacayay ma hadda ka fikiraysaa sidoo kale wiilkaaga ma waxaad awoodi weydid inaad ku tiraado waxyaalaha soo kale ha sameyn. Sheewala hadalka ayaa ku dhagay inta xanaaqday dhahaysaa Susan maanka marnaba ka saarin college-kan ama iskuulkan ninkayga ayaa iska go'aankan oo kaliya ayaa ka shaqeynaya. Susan ayaa u jawaabayso waxay dhahaysaa meesha runtii gurigaaga ma aha waa iskuul wax lagu barto wax waliba niyadaada ku soo dhacana lama sameynayo. Ugu dambeyntii Ayla ayaa waxay dhahaysaa bal ka warama haddii aan u codeyno oo aan u kala codeyno oo aan dhahno Cumar inta rabta inuu iskuulka ka taga farta ha taagto inta rabta inuu iskuulka joogana farta ha taagto. Ugu dambeyntii 4 iyo 4 ay u kala qaybsamayaan oo hal qof oo kaliya soo haraya qofkaasina qof kale ma aha waa Axmed Yilmaz. Marka maamulaha ama Burak ma codeyneen asagoo codeynta kuma jirin. Haddaba Axmed Yilmaz ayaa lagu dhahayaa labadan team ee u kala codeynaya Cumar mid ku biir ayaa la dhahayaa. Axmed Yilmaz ugu dambeyntii wuxuu go'aansanayaa in uu u codeeyo Cumar in uu iskuulka sii joogo balse Sheewal ayaa arrinkaas uga xanaaqaysa. U yar fiirso halkan oo kale Susan 3 jeer oo hore ay Cumar soo difaacday oo ah inuu iskuulka joogo waa markii saddexaad mar waliba ayaa guuleysanaysa waa marka kaliya Susan la yaabo waaw. Asxaabtayda horta waad ogtiin inaan commentidina akhriyo maalin waxaan arkayay gabadh lahayd yani Susan miya naxariis leh waxa laga yaabaa inay gabadhaas Susan u fahantii Susantii kale Cumar wada socdeen marka taan wad ognahay fatxanaha waxa ku jirta laba Susan ayaa ku jira labadaas Susan midna Cumar ayaa dhashay midna Cumar saaxiibadii waaye marka fadlan taas waxa la dhahaa Susie waa naanis ahaanteeda magaceeda dhabta waxa la dhahaa Susan ama Susan yani iiba ku jirta tan waxa la dhahaa Susan marka anaga marna ma qaldamayno Susanada yani markii aan taxanaha bilaabay xitaa waan ka soo fikiray in ereygaani marnaba uu niga qaldoon labada magacaan isku qaldeen markaan dhaho Susan waxaan ka wadaa Cumar hooyadiisa Susie markaan dhahana waa Cumar saaxiibadiisa ama Susan hadaan yani ku daro laakiin marka sa u fahma Susan dhameystiran hadii aad aragtid waa Cumar hooyadiisa waxaan faaladii idinku soo dhaxgeliyay ereygan ama inaan idin sheego intaan yani mar badan in iloobo waxaan isdhahay bal hatta fursad u haysataa xasuusatee bal la wadaag waa tahay Cumar waxa la go'aansanayaa in uu sii joogo balse asaga warka ma hayay sidoo kale dhamaanba ardaydu warka ma hayaan in Cumar waqtigaas loo go'aaminayo in uu ka tago iskuulka oo uu saa iskaga tago muuqaalka xig waxaan arkaynaa Suuseedii hadda waatan durba Susie waa Cumar saaxiibadii iyo sidoo kale beerkii oo cashraan iska diyaarsanaya isla markaana wada caweynaya balse cashrada waxa dhigaysay oo u marinaysay qoftan Susie ah balse beerkii maskaxdiisa maysan joogin oo uu fikirayay Susiena waxay dhahaysaa beerkii oo waxa kugu dhacay casharkayga ma dhageysanaysid yani halkeed ku maqan tahay markaas kadib wuxuu dhahayaa saawid ogtahay baad Cumar waa heshiisay sax markaan ku weydiin sababta ku heshiisayna waxaad igu tiri Cumar markii dhakhtarka la dhigay anigu aad ayaan uga dhaxay isla markaan u tagay aan rabay inaan soo salaamo asagoo waxaan arkay aad faraxsan oo daneynay inaan dib u laba heshiino anigana sidaas ay fursad igu noqoto waan la heshiiyay marka beerka ayaa saas dhahaya marka wuxuu dhahayaa Susie bal ka war hadana fikirkaaga kale intaan sameeyo hadaad intaad ay bikee la hadashid aad ku tiraadid beerku waa xanuunsanaya waa basti isla markaana iga naxdo halkaasina aan fursad ka helo ama sidaas aniga ay bikee aan ku heshiino Susie kama wadiidaysa fikirkii waxay la hadlaysaa qoftii ay bikee ahayd waxayna ku dhahaysaa beerku waa xanuunsanaya madax xanuun ayaa haya aad ayuu xumad u dareemaya ma timaadid laga yaabaa inuu bogsado markaa timaadid ugu dambeyntii ay bikee waxay go'aansanaysaa inay u timaado beerkii marka ay timaadaysa waxay ogaanaysaa inuu iska caafimaad qabo oo madaxiisa ay taabanaysaa ayadoo xaaladoodu iska wanaagsan tahay qoftii ay la ahayd ay imanaysaa wax waliba burburinaysaa waxay dhahaysaa halkaani maxaad ka qabanaysaa gabadhiyansa wiilkayga maxaad ka soo doontay miyadaysan kala tagin muran dheer ayaa halka ka dhalan doona balse ugu dambeyntii ay bikee waxay dhahaysaa aniga halkaan uma iman si aan wiilkaaga u heshiino kaliya iyaga ay la soo hadlay sidoo kale ayaga ayaa ii yeedhay sidoo kale Susie ayaa ii yeedhay haddana guriga waan kaaga tagay ay dhahaysaa balse beerka ayaa dhahaya ay bikee istaag fadlan ku baraya ay bikee ma dhageysanayso iska baxaysaa beerkina hooyadiisa ay ku dhahaya hooyo qorsayaan iyo degni Susie adigana qorsi waad ku ciyaartay bal ka waran hadda ay bikee waa iga tagtay waxay dhahaysaa wayba fiicnaan inaan maadan qorsaan ku ciyaar sababtoo aan doonayna gabadh aan la heshiisid muuqaalkii xiga waxaan arkaynaa Caakif oo casadii imaaday waxayna rabaan inay dooru ka dhaadhiciyaan nabhaad iyo Caakif inuusan wax dhaxmarin dooru ay rabaan in arrinka ka dhaadhiciyaan balse yani dooru kuwa uu ka yara siisaysanaya mana danaynayo
ayagana waxay halkaa kalsooni ay ka qaadeen inuu duruug waxba sheegaynin arrimahan oo kalena uusan dad la wadaagin yani marka hore wuu ogaan inuu sheegin balse waxay rabeen inay caadi uga dhadhacsiyeen waxaasina uusan ku talagalahayn hadaba muuqaalka xigoo arkayna gabadha Asiya ahayd oo loo waacay waxaan u yeedhisay Shiwaal waxayna ku dhahaysaa Asiya wax raba inaan kula hadlo Asiya inta hor wadiidaysaa balse hadalkeedu way dhageysanaysaa Shiwaal waxay ku dhahaysaa aniga ma doonayo Cumar iyo Saar inta kadib inay si dagaalan sidoo kale ma doonayo cunugeyga inuu wax soo gaaraan oo yarkan walaalkaaga waalan wax soo gaarsiiyo marka hal fikrad aynu ku soo jeedinayaa lacagtan 500,000 ee lira qaado meeshan iskaga fogaada nolol cusub dhista iskaga taga Asiya waxa dhahaysaa ma waxa kula tahay lacagtan qaadanaya siyaasad u fikraysid waa qalad sidoo kale waa wiilkaaga ee qaladka isaga qaladka geystay sidoo kale walaalka Cumar hadda waxaan sanaya wax dhibaato ama geysan doono haduu maalin wax geystana wiilkaagana yani cadaaladda ayaa la hor istaajin doonaa cadaaladda wax ka qaban doonta ama maxkamadda sida taqaantid kolba oo Asiya lacagtaasi ayada oo qaadan ay iska soo baxaysa halka muuqaalka xigaan arkayno maalintii xigtay ama subaxdii xigtay iskuulka beerkii ay bikay wada heshiir raba ay bikayna way ka aqbalaysaa kadib markii uu beerka ku dhahay ay bikay mar dambe ka maxnajinayay wax ku dhibaayeen ma sameynayay fadlan markan kadib isku day inaad ila heshiiso noloshan horaan dib u soo celino ugu dambeyntii waxay go'aansanayaan in ay cashay isu raacaan waqti xaadirkaas halka muuqaalka xigana arkayno Cumar oo wadada iska socda ama yani iskuulka dhexdiisa ayuu socdaa marka gabadhii Leela ahayd ayaa u yeedhisay waxay ku dhahaysaa Cumar ayaa dhahaysaa ayada oo hadal kala raacin Cumar ayaa dhahaya Leela waan ku bariyaa hadii aad soo wadatid ama aad dhihi rabtid yani iska taxadar dagaal ha galin yani nafteeda waan qanaasay la soo taxadaro Leela waxa dhahaysaa yani saas kama wadin ee bug bank weydiin rabay amal ama wax bi weydiin rabtay yani ereygan ani xaqada saak subaxan daawaday haddana waa 10kii barqin meelahaas marka ereygan macni dib ugu laaban marka waxaan filayaa in ay ku tiri waqtigaas dabcan waxay ku tiri wax bay weydiin rabtay ala kulli xal book ama yani wax u dhow iskuulka kamida markaas kadib Suuse oo kor kala socotay sheekaysigooda Cumar markuu ka dhaqaaq Leela waxay Suuse u imanaysaa Leela isla markaana waxa ku dhaysanaa hadafkaagu waaxay hadafkaagu muxuu yahay Cumar maxaa ka dabacsan mar walba maxaad ula hadashaa ayagoo waqtigaas hadalkooda wada socday ninkii toolga ayaa iskuulka ku soo laabanaya sabab ogna markuu dambeysay iskuulku uu iska dirabay wuxuuna dhahayaa gabdhahaye maxaa jira oo halkan ka jira Leela ayaa dhahaysa walaalkay waxay ii sheegi rabtay Suuse in ayadii Cumar ay heshiiyeen isla markaana ay faraxsan yihiin anigana waxaan dhihi rabay Ilaahay farxadiina idin siyaadiyo Suuse waxay dhahaysaa aamiin aamiin markaas kadib Suuse ayaa dhaqaaqaysa kadibna toolga ayaa walaashiisa la sheekaysanaya halkaasna waxaan ku ogaanaynaa Leela inay jeceshahay Cumar wada sheekaysigu waa iska dheeraa muuqaalkan yani ma doonayn wada sheekaysigooda mid u fafaahiyo balse muuqaalada xiga ee rajaynaya arrinkan inaan qayb kamid ka soo qaadano si toddobaadkii u dambeeyay aan sameynay sababta toddobaadkii u dambeeyay waxyaalihiin ka tagnay muuqaaladii u dambeeyay ayaan idinku sharaxnay ahayd waata dhanka kale waxaan arkaynaa muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Cumar iyo Saar oo isbalansanaya oo dagaal isku balansanaya oo raba inay waqtigan isdagaalaan oo meelba isku balansanaya ala kulli xaal marka iskuulka laga baxo oo labadooda kaliya og yihiin muuqaalka xiga waxaan arkaynaa gabadhii cusbayda ee gulay ahayd waa iskeentay gabadhii Asiya la saaxiibaysay xalqadan ayay timid aniga ma moodeenba inay timid sabab ognahay labadii cisho u dambeysay muuqaal ma soo gelin macluumaadana ma tixraacin oo ma raadinin marka waan yaabay markaan arkay gabadhii oo la keenay iyo durba ay Asiya kulmeen marka gabadhan ugu horeyntii waxay iyaduna ka shaqeysaa dawarlayaasha agtooda ay ka shaqeysaa isla markiina Asiya waa isfahmeen marka yarkii dooruka waxa la soo hadlaysa Yaasmin ee la soo hadlaysa waxayna ku dhahaysaa Saar bi Cumar waa istagaali rabaan fadlan dabcan kala celi meeshaas isku dagaalayaan doorukuna wuxuu la hadlayaa Asiye wuxuuna ku dhahayaa Cumar ayaa dagaal geysan raba oo saa sameey raba markaas kadib Asiye waxay ku dhahaysaa gulay gabadhii cusbayd ay ku dhahaysaa waan ku bariyaa maamulaha iga sasab walaalkay arin khuseeyaan tagaya waa muhiim inkastoo gulay ku dhahaysa shaqadaada yani ha iskaga ciyaarin maamulaha ma yeelayo balse Asiye ugu dambeyntii waxay go'aansanaysaa inay shaqada waqti xadarkaas ka baxdo oo degdeg ugu tagto walaalkeeda oo kala celiso Sarbi iyo Cumar muuqaalka xiga waxaan arkaynaa beerkii iyo IBK oo imaaday hotelkii ama baarkii yani ay nabhaat lahayd iyo Axmed Ilmaazna uu la lahaa oo sheerka wadaagayeen markaas kadib samad ognahay sidoo kale hotelka waxa ka shaqeeya yarkii toolga ahaa ayaa shaqo ka bilaabay hotelkan marka asagoo beerkii iska fadhiya waxa uu iman doona yarkii toolga wuxuuna ku dhahayaa dalabkaaga ii sheeg halkaasi muran weyn baa ka dhalan doona sababtoo beerku wuxuu ku dhihi doonaa
halkan maxaa ka qabanaysaa ma shaqo cusub ka bilowday mise waxaad rabtay in IBK u soo dhawaatid hadda ayaan ku fahmay Cumar halkan uu ka shaqeeyo waxaad rabtay in IBK u soo dhawaatid toolga ayaa xanaaqay wuxuu ku dhahayaa beerkay kulay waxaad damacsantahay ma sheegi kari balse wax dalbo anaan ku keenay dalabkaaga halkan ugu kala dhamee balse beerkii halkaasi kuma joojinaya hadalkiisa waa uu sii hadlaya wuxuu dhahayaa halkan waxaad u timid Soomaaliya inaad u soo dhawaatid IBK-deeda ballan way fursad kuma siinay inaad IBK u soo dhawaatid asagoo hadalkaas la IBK ayaaba imanaysaba wuxuu sidoo kale IBK oo agtiisa ka dhahayaa ballan way inaan meeshan ka buriyo ama aan ku kalifo in laga buriyo sidoo kale ballan way in iskuulka xitaa aan ku dhibo IBK-na laga yaabo inaan fursad ku siino u soo dhawaatid IBK ayaa hadlayso waxay dhahaysaa bitas adiga go'aankeeda ma qaadan kartid aniga ayaa go'aankeeda leh qofkii isu dhawaanaya qofkii iga fogaanaya go'aankeeda aniga ay hele laga yaabo mar dambe inaan fursad labaad ku siiyo abti nagu kala gee ay beer waxoodu markaan kadib xad ka baxayuu noqday jacayl maaha dad taageero ahayd waxaan kugula talin lahaa inaad iskaba dhaaftidba 2 cisho ka hor mise 1 cisho ka hor ayuu ahaa arjimcihii miyuu ahaa kaardislerim wallaahi waxay soo samaysay hashtag lagu magacaabo toolgay IBK ay tool ayaan dhihi karay moji waxay ku diideen ma faniska ku batay adi tool ayay soo sameeyeen marka IBK iyo beerkii rajaha ka sugina muuqaalkii xiga waxaan arkaynaa Sarbi iyo Cumar oo iska hor imaaday dagaalkoodii oo bilaabma raba oo iyagu istagaali raba dabcan dagaalka marka uu bilowdo ninkan Sarbi lagu magacaabo wuxuu la soo baxayaa mindiyar Cumar wuxuu dhahayaa waan ogaynaa kaliya wax iga tareenin oo mar waliba wax wadan balse Durukiyo Asiye oo gaari watay ayaa waqtigaasi kala celinaya Durukiyo Cumar ku dhahay Cumar wad qaldantahay dagaalkan iska daa gabadha Asiye way murugtay shaqada ay hadda ka timid aad ay u murugtay Asiye dhahaysa Soomaalida balaniga qaayna dagaal galin waxan waaxay Cumar waxa sameynaysa saan qalad waaye nagada kaftanka ugu dambeyntii ninkii Sarbi uu iska baxaya muuqaalka xiga waxaan arkaynaa qoftii goon u lahayd oo gaarigii Shinguul soo nadiifisay soo hagaajisay oo waxay u keenaysaa Shinguul waxay dhahaysaa aniga ku soo hagaajisay Shinguul furiina waa kan igana raali noqo wax qaldan ayaan ka aaminsanaa Shinguul waxay dhahaysaa argoonul maanta maxaa ka qaldan way wanaagsanaatay waxaan moodayay markii hore inay gaarigii gubtay balse maysan gubin sidoo kale waxay igu dartay inay soo hagaajiso Shinguulay markaan waa lagu gaaday adduunba warka maysid qoftan iyo gaariga gubtay maanta TikTok ku arkayay gabadh oo Cumar farin u direysay muuqaalka xiga waxyaalaha waga hadlayna muuqaalka ma kiifaalada hadaba muuqaalka u dambeeya waxaan arkaynaa gabadhii Asiye ahayd oo go'aansatay inay u timaado islaantii Sheewaal ahayd waxayna ku dhahaysaa Sheewaalay aniga waan ogolaaday caradkaagii ama soo bandhigistaadii waxaad ii soo bandhigtay aniga waan ogolaaday markan kadib waxaan diyaar u ahay in lacagtii aad ii soo bandhigtay ka qaato ani walaalahayna nolol cusub aan sameysano isla markaana aaban iskaga guurin xaafadahan ma sheekirin iskuulka tagayaan laakiinse moorada waa ay ka bixiraamaan maxra digaaga waa ay ka tagayaan Sheewaal lacagtii Asiye soo siinaysa Asiye oo dareemaysa dulmi ma waxyaalahan kala dulmi lagu tilmaamayaan qaldamin waxay dareemaysaa muxuu yahay talo walahi ma sheegi kari balse way iska ooyeysaa waxayna dareemaysaa inay de lacag soo qaadatay masaakiinimo marka iyadoo ooyeysa xalqadu dhamaanaysaa kulay de xalqadu waa iska yara fiicnayd waa 10kii hadda laakiin reetku soo baxay anoo muuqaalka duubay xitaa waan awoodaa inaan soo eego ratinka balse gooska dhexdiisa idinku sheegina dawsada halka ay taagnayd muuqaalkan like saar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh